Assalaamu calaykum. Waa qaybtii labaad ee sheekada Dan Kuba, ninkii afduubtay diyaaradda. Waxaynu ka soo hadalnay qaabka uu diyaaradda u afduubtay iyo tilmaamihiisa. Waxayna inoo marisay su'aalo ku saabsan Dan Kuba iyo in la helay caddaymo ku saabsan. Sidoo kale, haddii aadan daawan qaybtii hore ee sheekada, waxaad ka helaysaa description-ka ama fiidiyowga hoostiisa. Daawasho wacan. 1972 waa hal sano kadib afduubka. waxaa soo ifbaxay eedaysanayaal tiro beel ah kuwaas oo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin faldambiyeedkii dhacay. ka sokow laamaha dowladda, warbaahinta ayaa faafisay fariimo ay ka heshay dad badan oo sheeganaya inay yihiin DB Kuba. qaar ka mid a dadka ayaa tilmaamay inay garanayaan Kuba ama ay daris yihiin. halka nin uu gaadhsiiyey waa walaalkay markii la gaadhay 1975. dadkan tiradoodu waxa ay gaadhay 800 oo eedaysane. baadhitaan iyo dabagal dheer kadib, tuhunku wuxuu ku ururay 24 qof. kiiska uu galay Kuba waa afduub diyaaradeed. marka la eego sharciga Maraykanka, haddii ay 5 sano ka soo wareegto faldambiyeedka oo aan la soo qaban dambiilaha, kiisku wuu dhacayaa. taas macnaheedu waxa weeye Kuba kiiskiisu wuu dhacay oo in la maxkamadeeyo daayi lama soo xidhi karo, xataa haddii uu xabsiga soo booqdo. haddaba si looga hortago arrintaas, guddi garsooryaal ah ayaa u fadhiistay. kiiskii Kubarna waxa loo bedelay waxa loo yaqaano blackmailing, oo ah in madax furasho loo qabsado dad hanti ama sir iyadoo lagu xidhayo shuruudo dhaqaale ama wax kale. waa dembi aan baaba'ayn waqti kasta oo ka soo wareega. xataa 100 sano kadib, haddii la qabto dembiilaha waa la xukumi karaa. Dan Kuba cidima soo qaban, waxaana la odhan karaa kiiskani gudaha Maraykanka waa kiiska keliya ee quseeyay afduub diyaaradeed oo aan la soo qaban dembiilihii fuliyey. sida aynu soo sheegnay, magaca uu tikidhka ku qortay waa Dan Kuba, laakiin waxa uu ku caanbaxay magaca DB Kuba. inkasta oo loo badinayo in magacan qaldani uu ku faafay mid ka mid ah riboodyada dembi baadhista, haddana si saxan looma garanayo sababta loo bedelay magacii hore oo laftiisa aan la hubin inuu sax yahay. aynu u soo noqonnay eedaysanayaasha ugu waaweyn ee loo maleeyay inay yihiin DB Kuba. eedaysanaha koowaad, Richard Floyd Mackey. ninkan waxa uu DB Kuba la wadaagay astaamo badan. waxaa ka mid ahaa inuu afduub diyaaradeed fuliyey 17 Abriil 1972. waa 4 bilood kadib afduubkii hore. wuxuuna doortay diyaarad uu nooceedu yahay Boeing 727. waa isla noocii afduubtay Kuba. sidoo kale, markii ay diyaaraddu haadii ayuu warqad u dhibay gabadh ka mid ah shaqaalaha diyaaradda. waxaa ku qornayd fariin la mid ah midii Kuba: marwo waxa aan wataa bombo. 4 dalladood ayuu dalbaday sida saaxiibkii. isla qaabkii Kuba ayuu uga booday albaabka dambe. farqiga keliya ee u dhexeeya labadaas kiis waa inuu fulay dalbaday adduun lacageed oo dhan $500,000, halka Kuba uu codsaday keliya $200,000. haddaba Floyd khaladka uu galay ayaa ahaa inuusan lahayn taxadir iyo foojignaan la mid ah midii Kuba. runtii farihiisa ayaa laga helay meelo badan oo diyaaradda ka mid ah. xataa warqaddii uu dhiibay gabadha waxaa laga helay farihiisa. si fudud ayaana gacanta loogu soo dhigay odaygan. baadhitaanka lagu soo qabtayna ma qaadan wax ka badan 2 maalmood. taxadir la'aantiisa iyo doqonnimada laga arkay ayaa laga fahmay inuu ahaa miskiin warbixinta Kuba ka aqriyay joornaalada, iskuna dayay inuu fuliyo howlgal la mid ah midii uu fuliyey Kuba, laakiinse kuma uusan guulaysan. waxaa lagu xukumay 45 sano oo xadhiga ah. dadka qaar ayaa aaminsan inuu yahay DB Kuba, laakiin xaqiiqda ayaa inay ku kala duwan yihiin dhowr arrimood, sida wejigiisa oo ka duwan midii Kuba. sidoo kale, waxaa la caddeeyay in maalinkii afduubkii hore dhacayay in Floyd iyo qoyskiisu ay ku sugnaayeen stateka Utah. sida aynu soo sheegnay, Floyd waxaa lagu xukumay 45 sano oo xadhig ah, laakiin ma uusan dhammaysan sababtoo ah waxa uu isku dayay inuu xabsiga ka baxsado. wuxuuna ku dhintay rasaasta ciidanka oo ka jawaabay xabada uu ku soo riday. eedaysanaha labaad, Dwayne Weber. ninkan 24 sano kadib ayuu sheegtay inuu yahay DB Kuba. waa 1995. xaaskiisa ayaa sheegtay inta uusan dhiman inuu ku yidhi waxaan rabaa inaan kuu sheego sir aan in badan kaa qarinayay. waa aniga Dan Kuba ayuu ku yidhi. waxay soo xasuusatay arrimo badan oo caddaynaya inuu yahay DB Kuba. arrimahaas kuma aysan baraarugsanayn markii uu noolaa ee caafimaadka qabay. waxaa ka mid ahaa inuu habeenkii uu marar badan qarwi jiray ama qaylin jiray isaga oo hurda. farahayga ayay ka helayaan diyaaradda ayuu odhan jiray. sidoo kale, wuxuu ka caban jiray xanuun ruugga ah oo uu sheegay inuu yahay nabar soo gaadhay xilliga uu diyaaradda ka soo booday. arrinta saddexaad ayaa ah fartiisa oo aad ugu ekayd midii Kuba. waxa kale oo ay xaaskiisu sheegtay inuu dalxiis u geeyay Tina Bar oo ah aagga laga helay lacagta 1980. ogow goorta uu dalxiiska u geeyey
waa ka hor inta aanan la helin lacagta. intaas waxa dheer Dwayne inuu ka tirsanaa ciidanka cirka ee Maraykanka uuna galay kiisas iyo dembiyo kala duwan markii uu ka tegay shaqada ciidanka. kiisaskaas oo sababtiisa uu xabsiga ugu qaatay muddo 6 sano ah. tan ugu dambaysa ayaa ah inuu muuqaalkiisu aad ugu ekaa DB Cooper. inkasta uu ku jiray dadkii laga shakiyay ee dabagalka lagu hayay, haddana laguma helin wax caddayn ah. aynu u gudubno eedaysanaha saddexaad, Kenneth Christensen, walaalkiis Lil Christensen. haddaba Lil 2003 ayuu daawaday muuqaal taariikhi ah oo ku saabsan DB Cooper. markii uu dhammaystay muuqaalka ayuu isu geystay xasuuso badan, wuxuuna aaminay in walaalkiis Kenneth oo xanuunka kansarka u geeriyooday sanadku markuu ahaa 1994 uu yahay DB Cooper. haddaba maxay yihiin arrimaha uu ku caddaynay in walaalkiis uu yahay DB Cooper? ugu horrayn, Kenneth waxa uu ka mid ahaa shaqaalaha Northwest Orient oo ah shirkadda lahayd diyaaraddii la afduubtay, waana arrin u sahli karta inuu helo xog badan oo ka caawin karta afduubka. qodobka labaad ayaa ah inuu jeclaa aadna u cabbi jiray nooca khamriga ee loo yaqaano bourbon, kaas oo ahaa isla noocii uu dalbaday DB Cooper. intaas waxa dheer inuu guri qaali ah gatay wax yar uun kadib markii uu dhacay afduubku. caddaynta ugu xooga badan ayaa ah in ninkan sawirkiisa la tusay mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda oo sheegtay in sawirkan uu aad ugu eegyahay ninkii afduubka geystay ee aragtay. si la mid ah eedaysanihii hore ee Kenneth, waxa uu ka mid ahaa ciidanka Maraykanka. labadooduba waxa ay qabeen tababar ay si fudud baarashuudka uga soo goosan karaan diyaaradda oo ku duulaysa joog sare. laakiin FBI-da ayaa aaminsan in DB Cooper uusan lahayn xirfad duulimaad, sababtoo ah wuxuu doortay noocii ugu liitay marka la eego 4 baarashuud ee loo keenay. eedaysanaha afraad, Robert Rakistow, oo ah kan ugu dambeeya aynu soo qaadan doono, waa nin yaab leh. waa nin nool ilaa maanta. waxa uu ahaa duuliye ka qayb qaatay dagaalkii Vietnam. anshax xumo iyo dhaqankiisa oo khariban ayaa sababay in laga rusqeeyo shaqada ciidanka. wax yar uun ka hor howlgalkii afduubka, wariyayaal badan oo su'aalay ma tahay DB Cooper ayuu ugu jawaabay waa laga yaabaa. mid ka mid ah waraysyadii lala yeeshay ayuu ku sheegay inuu soo afjari karo muranka ku saabsan qofka uu yahay DB Cooper. ninkan laguma hayo wax caddayn ah, sidaa darteed FBI-du waxa ay xidheen faylkiisa. sidoo kale gebi ahaan kiiskan ayaa la xiray 2016 markii laga samayn waayay wax horumar ah. muuqaalkan waxaynu ku soo qaadanay 4 ka mid ah eedaysanayaasha, laakiin sida aynu soo sheegnay tiradoodu aad ayay uga badan tahay intan. gunaanadka aragtiyaha iska hor imaanaya waxaynu ka dhigaynaa aragtida uu qabo mid ka mid ah ciidanka FBI-ga oo lagu magacaabo Larry Kerr. aragtidan wuxuu soo jeediyey sanadkii 2007, wuxuuna sheegay in DB Cooper uusan ka badbaadin boodadii diyaaradda. markii hore waxaa loo maleynayay inuu leeyahay xirfad duulimaad, laakiin baarashuudka uu doortay oo ah noocii ugu xumaa kuwii loo keenay ayaa laga fahmay inuusan lahayn wax khibrad ah. xilli habeen ah oo ay cimiladu xun tahay ayuu diyaaradda ka booday, wuxuuna isku beegay meel kayn ah. khatartaas uma bareeri karaan xataa dadka ugu khibradda badan duulimaadka ee ku nool dunida. mushkiladda ka hor imaanaysa aragtidan ayaa ah inaan la helin meydkii DB Cooper iyo xataa wax ka mid a lacagtii iyo alaabtii uu watay. su'aasha taagan ayaa ah maxaa loo waayay meydkii ama lacagtii haddii uu dhintay? haddaba ma xasuustaa lacagtii laga helay jiinka webiga Louis? taageerayaasha aragtidan waxay aaminsan yihiin in Cooper uu ku dhacay webiga. dalladda iyo baarashuudka dhabarka oo lagu daray culayska maryihii uu xidhnaa ayaa suuragelin waayay inuu dabaasho, sidaas ayuuna ugu dhintay webiga. waana sababta meydkiisa looga waayay meesha uu ku degay, ayay leeyihiin taageerayaasha aragtidani. webigan waxa uu meel dhexe kaga darsamaa webiga ka weyn ee lagu magacaabo Columbia River, kaas oo biyaha ku dara badweynta Pacifiga. haddii aad xasuusato taygii uu diyaaradda kaga tegay Cooper, dib ayaa loogu sameeyey baaritaan markii ay horumartay tiknoolajiyaddu, waxaana laga helay kiimikooyin lagu isticmaalay warshadaha lagu farsameeyo diyaaradaha. si gaar ah waxa uu isticmaashaa shirkadda Boeing oo ah tan farsamaysa diyaaraddii la afduubtay. sidaa darteed waxaa soo baxay tuhun ah in Cooper uu ka mid ahaa shaqaalaha shirkadda. sida aynu soo sheegnay, baaritaanka kiiskan wax natiijo ah lagama gaadhin, waxaana si rasmi ah loo xidhay galka kiiskan sanadku markuu ahaa 2016. haddaba daawade, hoos nagula wadaaga aragtidaada ku aadan dhacdada. midkee ayaad u malaynaysaa inuu noqon karo Cooper eedaysanayaashii aynu ka soo warrannay?